السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد 10 عصب أو كسابسن Python functions يسيد الله استعماله functions و code codecast ayaad isugu geynaysaa hal meel marka waa function is a named block of code waa code aad magac u samaysay wuxuu qabanayaa performs a specific task shaqo gooniyuu qabanaya marka function walba waxaa fiican u samaysay inuu keliya shaqo gooniya qabto can take inputs macluumaad baynu soo diri karnaa can return output isaga macluumaad inoo soo celin kara hadhowtaan arki doonaa can be called multiple times from different parts of your program faa'iidada ugu weyn marka functionka waxa waa qaybta afraad oo ah hal mar ayaynu codekii qoraynaa ka bacdi markaa marar badan ayaynu u yeedhi karnaa codekaas inagoo markaa isticmaalayna baran doona habka loogu yeedho laakiinse codekaagii ay wuxuu ka dhigayaa modular code mar walba intaad soo celcelin lahayd ayaad hal mar samaysanaysaa ka bacdi markaa doonta ayaad u yeedhanaysa codekaas haddana waxaan arkaynaa tusaalooyin ku saabsan functionka iyo sida loo isticmaalo marka hore functionka qorayno waa inaan ka bilownaa def oo u taagan definition ka bacdi waa inaan magac siinaa functionka hadaynu dhahno matalan greeting parenthesis colonkaas waa muhiim ka bacdi markaa waxaad gelaysaa indentationkaas ama spacekaas waa muhiim functionka gudihiisa aan hadda ku jirna markaasaan markaa codekii qori karnaa print iska war the functionkaas ayaynu samaynay codeka haddaan run dhahno wax result inoo soo baxay male waayo functionka waynu samaynay laakiinse umaynaa yeedhin haddaynu rabno inuu yeedhno markaa inaan isticmaalnaa functionka magaciisii waa greeting ka bacdi markaa inaynu dhahno parenthesiskaas run imika haddaynu dhahno wuxuu abtirganaya iska war marka functionka marka hore inaad samaysaa ka bacdina aad u yeedhaa waxaa la dhahaa function invocation baa la markaad u yeedhayso si aan hore usoo fahanay markaa intaan doonaan u yeedhi karaa functionkaas mar baan samaynayaa codekii ka bacdina waa reusable dib baynu isticmaali karnaa iska waran halkaas marka waxaan ku aragnay functionka waxaad marmar arkaysaan functionka haddaan hadda kan comment ka dhigno marmar waxaad arkaysaa haddaynu dhahno pass functionkaas yani waxba ma qabanayo laakiinse functionka wuu jira haddaan run dhahno uu run garaynayma laakiinse wax result oo soo baxaya marka haddii aad rabto inaad functionka samaysato laakiin weli wax macluumaad aan gelin passkaas ayaad ku qori kartaa marka hadda print markaan dhahno waxaynu oran karnaa iska waran wuxuu noo qorayaa mar walba markaa iska waran maryam haddii aynu rabno inaynu magaca maryam usoo dirno waa inaanu isticmaalnaa parameters waxa la dhaho okay parameterska markaa waxaynu gelinaynaa halkaas gudaha ayaad gelinaysaa waxaan oranaynaa matalan name magac baan kusoo diraynaa marka meeshii maryam aan ka print garaynaynay ayaan waxaynu leenahay print plus name haddaan run dhahno marka waxaan print garaynayaa functionka umaynaa yeedhin okay waxaa muhiima markaa functionka hadda markaan u yeedhno waxaad arki doontaan haddaan functionka magaciisa keliya isticmaalo greeting on run dhaho error ayaana soo baxay errorkaas waa muhiim inaad fahamtaan especially gaar ahaan messageka wuxuu leeyahay greeting oo ah functionkii aan samaynay is missing one required positional argument uma aada soo dirin ayuu leeyahay marka halka markaynu gelinayno parameter baa lahaa halkanna waxaynu gelinayno argument baa lahaa marka macluumaad baan kaa sugayaa buu ku yidhi laakiinse imaada soo dirin gaar matalan magacii imaada soo dirin marka halkaas waa inaan magaca gelinaa halkan haddaan dhahno hadda waxaan kusoo diraynaa magaca maryam run dhahno waxaan garanayaa iska waran maryam haddaan rabno magaca kala dhowta inaan u dirno greeting waxaanu leenahay iska waran maryam iska waran axmed marka waxaad doonta ayaad usoo diri kartaa okay arguments kala duwan ayaad usoo diri kartaa haddaynu dhahnaa matalan namekii baynu haysanay age baynu raacinay waxaynu odhanaynaa inagoo isticmaalaynaa formattingkii f name is agekiina halkaasaan gashanaynaa hadda marka waxay naga sugayaa inaan laba argument usoo dirno
name iyo age marka Maryam comma inaan age kiina marka raacino weeyaan 20 Ahmed comma 25 daraan dhahna marka wuxuu qorayaa Maryam is 20 years old Ahmed is 25 years old okay arguments haddaan soo dirayno marka orderku waa muhiim si ay u kala horeeyaan waa positional argument baa lahaa haddaan hadda Maryam meeshii 20 ahayd meeshii nameka haddaan 20 gelino magaciina meeshii ageena Maryam gelino marka codekeenu waxaa ku jira wax la dhaho logical error wuxuu qoranayaa 20 is Maryam years old marka waxbaa ka khaldan marka positionku waa muhiim taas in la xasunaado sida ay u kala horeeyaan waa in loo kala horeysiiyaa qaybtan kale waxaan ku baranaynaa wax la dhaho docstring docstring waa macluumaadkaas functionka line-ka ugu horeeya haddaad string geliso oo markaa stringkaas waxaa la isticmaalaa documentation haya loo isticmaala waxaa la dhahaa docstring haddii aan rabo inaan print gareeyo macluumaad ku saabsan functionka waxaan odhanaynaa print functionka magaciisii greeting dot underscore underscore doc underscore underscore marka dunder baa lahaa doc variablekan wuxuu inoo print garaynayaa macluumaadka halka aan gelinay this function prints person details marka waxaa loo isticmaalaa documentation ahaan oo kale markaad functionkaaga aad rabto inaad u sharaxdo qof isticmaali userkii siduu u shaqeeyo ayaad wixii macluumaad halkaas gelinaysaa macluumaad dheer haddaad gelinaysana saan hor usoo barayna waxaad 3 string intaad isticmaasho 3 quote ayaad marka wixii macluumaad halkaa gelin kartaa waxaad doontaad gelin kartaa marka macluumaad dheer haddaad rabto inaad geliso waxaad isticmaalaysaa triple string triple quote ranaday dhahna wakaa macluumaadku dhan inoo printer garay okay functionka haddaan samaynay waxaa la dhahaa user defined function waa function inagu aynu samaynay laakiinse functions horaan usoo isticmaalaynay waxaa ka mid a print waxaa ka mid a len waxaa ka mid a to upper string markaan isticmaalaynay to lower case waxaasoo dhan waa wada functions kuwaas waxaa la marka built in function haddaad rabto macluumaad inaad rabto macluumaad ku saabsan functions haddaad rabto inaad print garayso waxaad isticmaalaysaa help kabacdi markaa matalan len oo kale wuxuu sameeya haddaan rabno inaan ogaano help len ay runayna wuxuu inoo sheegayaa wuxuu yahay return the number of items in a container marka docstring ayuu inoo print garaynaya haddaan nahano print baan rabno inaan ogaano macluumaad ku saabsan waxayna siinaya macluumaad ku saabsan print marka iyo waxay la isticmaalay step iyo end iyo sidii loo isticmaalayay waxyaabo dhan buu ku sheegaya marka waa documentationki ayuu ku print garaynaya waxaan baranaynaa marka hadda sida macluumaad functionka uu macluumaad u soo celiyo def haddaynu dhahano get full name parameterka ugu horeeya waxaan ka dhigaynaa first name last name marka waxaan baranay hadda matalan haddaynu dhahano full name is equal to formatka aan baranay haddaan isticmaalno first name full namekii baan samaysanay waxaan samayn karnaa print full name marka functionka markaan u yeedho automatically full nameki ayuu inoo print garaynaya haddaan dhahno hadda get full name oo laba magac u dirno wuxuu inoo print garaynayaa full namekii marlex waxaad u baahanaysaa macluumaadkaas inaad meel ku save garaysato ood marar badan isticmaasho markaas kale waxaan odhanaynaa meeshaan ka nidhi print waxaan odhanaynaa return full namekii ayuu inoo soo celinayaa taas micnaheedu marka waxa weeyaan markaan function ku yeedhayno waa inaan variable ku assign garaynaa waxaan odhan karnaa haddaan doono khasab maaha full name inay isku magac ahaadaan variablekan iyo kana isku magac ahaadaan khasab maaha laakiinse hadda full name baan isku odhanaynaa haddaan doono laakiinse f name baan u bixin karaa ama result muhiimaddu waxa weeyaan functionkii markaan u yeedhno wuxuu inoo soo celinayaa full namekii haddii aan actually haddayna u samayn variable oon ran garayno waxaad arkaysaa inuu waxba print garayn macluumaadkuu soo celiyey laakiinse waa in inagu markaa ku assign garaynaa variable marka waxaan odhanaynaa full name is equal to get full name macluumaadkii inoo soo celiyey ayaan markaa print odhan karnaa full name
dan run dhahan wuxuu inoo bintigaraynayaa full namekii laakiinse faa'iida marka ku jirta waxa weeyaan haddaan u baahda mar labaad inaan full namekii printer gareeyo uma baahan inaan functionkii u yeedho waayo variablekaas ayaa haya full namekii meeshaa doonto programkaaga ayaad ku isticmaali kartaa full namekaas marka faa'iida ugu weyn waa taas weeyaan haddana waxaan baranaynaa waxa la dhaho default argument marka halkan oo kale hadda dadka qaar baa 3 magac leh waxaan oranaynaa middle name waxaan haysanaa full namekii middle namekii iyo last namekii okay full name dhahana markaa middle name iyo last name marka waana 3 magac halkan gelinaa Axmed Cali Cusmaan full namekii inoo soo celinayaa Axmed Cali Cusmaan laakiinse problemka waxa weeyaan cid walba ma isticmaasho 3 magac marka haddaynu haysano full name kale then dhahana person 1 is equal to get full name magac kale halkan haysanaa marka uma yeedhi karnaa hadda functionkan waayo error ayaa soo baxaya wuxuu oranayaa error waxaan rajaynayay 3 arguments laakiinse mid ayaa kaa maqan one required argument ayaa kaa maqan haddii aan rabno marka inaynu programku isticmaalno dadka leh 3 magac iyo kuwii leh 2 magacba waa inaynu isticmaalnaa default argument waanu dhahanaa matalan waxaan ka dhigaynaa middle nameka empty aan ka dhigaynaa laakiinse waxaad aragtaa error default argument mar walba waa inuu ugu dambeeyaa marka middle namekii intaan soo qaadno waa inuu ugu dambeeyaa parameterskaan isticmaalayno cut intaan dhahno xagana gelin marka middle nameka waa default argument haddii aan lagu soo dirin middle name waxaad ka dhigtaa empty ayaynu nidhi okay marka hadda haddii aan labada magacba ku shaqeyn laakiin middle nameka halkan waxaan haysanaa first namekii last namekii middle namekii halkan waa first namekii kana last namekii buu ahaa marka Cusmaan waa inaan middle namekii waa inaan xagga dambe geynaa ونحن عالي ما دام عالي إنه هو middle name key إنه نسجل حاجة دنبجينا أي نقوليس سيدو كورين لفهموا مهم كانوا first name key أحمد last name key عثمان middle name key أيقود دنبجي ما دام إنه نري middle name حينو كدقنا default argument أما default value أيانو سيناي مركا وينو وود دنبجي هذا دينو رن دهانو لابدو كشقينيا أحمد full name كان بريت كريني دينو دهانو print person 1 run هذينو دهانو مركا وحينو بريت كرينيا أحمد عثمان middle name كي هالكان مادام هو empty هاي هالكان وحينو سميه لبا space لبا space خالد وين ما هلاكيس waxa fiican ka saarno seen uga saari karnaa waxaanu yeelan karnaa middle name ka inuu in la inoo soo diray in kala xanuun karnaa if middle name hadaanu empty ahayn waxaad isticmaashaa habkan else haddii middle name ka empty yahay waxaanu oranaynaa markaa full name is equal to first name middle name ka meesha ka saarayna iyo last name marka space kaas dheeraadka ayaa meesha ka baxaya run haddaynu dhahno marka hadda Axmed Cusmaan waa uu ku shaqeeyey James John uu ku shaqeeyey space dheeraadana ma leh marka haddii aad isticmaalayso argument marmar empty ahaanayo default argument isticmaali karta okay 10 waxaan ku baranaynaa keyword arguments waxa la dhaho horeynu soo aragnay positionku waa muhiim marka halkan haddaan hadda waxaan haysanaa function print gareynaya magacii iyo jobkii taynu dhahno print ama my details function kiis waa details taynu dhahno magacii waa Axmed jobna waa waxaanu print gareynayaa Axmed is engineer Ahmed is engineer
laakiinse waxaanu baranay inuu habkan aan isticmaalna waxaa la dhahaa positional argument marka positionka waa muhiim haddii aynu axmed dambaysiino matalan khalad ayaa dhacaya waayo orderka waxaynu nidhi ama siday u kala horreeyaan waa muhiim taan run dhahno markaa error ayaa halka ka jira engineer is axmed waxaan isticmaalnay marka waxa la dhaho keyword argument waxa weeyaan variablekii iyo valuegii ayaad gelinaysaa markaad function ku yeedhayso marka halkan waxaan haysanaa hadda job waxaynu nidhi matalan job is equal to iyo name is equal to marka keyword argument baa lahaa habkaas markaad isticmaasho orderku muhiim ah saa doontaad u kala diri karta waa kaa shaqeynaya axmed is an engineer muhiimaddu waxa weeyaan inaad markaa variablekii job halkaas ahaa inaad halkan keento equal sign iyo valuegii automatically marka wuxuu ogaanayaa job ayuu ku assign garaynaya jobkan namekan ku assign garaynaya marka la keyword argument marmar baa la isticmaalaa markan waxaan baranaynaa waxa la dhaho arbitrary arguments markaynu samaynaad arki doontaa waxaanu haysanaa matalan function def print hadaynu bixino names baan usoo diraynaa dina hadda marka print names haddayaan rabno list of names waxaan samayn karnaa names intaynu dhahno halkan in list samaysan karnaa markaynu u yeerayno functionkii print names ayaynu waxu diri karnaa listiga marka listiga ayuu noo print garaynayaa for loop noo isticmaali karnaa hadhowtee noo isticmaalayna for loop laakiinse haddii ayna ogeyn inta magacaan soo dirayno way nagu adkaanaysaa inaan list samayno marka waxaan rabaa inaan mar inta magacaan doonayaan usoo diro halkan imika siduu yahay waxaan u diri karnaa keliya hal argument haddaan dhaho axmed print axmed ayuu print garaynayaa laakiinse hadday aynu ku darno magac kale error ayaa soo baxa wuxuu leeyahay markaa print names takes one positional argument but two were given hal argument keliya halkan ayuu qaataa laakiinse labaad usoo dirtay okay hab loo xaliyaa jira marka waxaan isticmaalaynaa waxaa la dhaho asterisk ayaan halkaa gelinaynaa asterixkaas automatically argumentska soo dirto oo dhan ayuu wuxuu u bedelayaa list taan run dhahna hadda okay list ayuu bedelay actually tuple ayuu u bedelay laakiinse adigu waa collection micnaheedu marka waxa weeyaan waynu ognahay inuu collection waxaan isticmaali karnaa for name in names mid baa inuu tirganayna maadaama uu yahay collection britol haddaan go-aansanayna magaca kale usoo dirno waxba no problem ugu shaqaynayaa unlimited arguments ayaad usoo diri kartaa asterixkaas ayaa markaa keenaysa inaad unlimited arguments aad usoo dirto inta badan waxaad ku arki doontaan args waxa la isticmaalaan laakiinse waa iska variable name waxaad usoo bixin kartaa saasaad oran marka asterixka marka hore unbaad raacinaysaa laakiin marka dambe lama raacinayo marka waxaa laga yaabaa inaad argskaas aad aragtaan laakiinse waa variable name un waxaa ka fiican aad bixiso maadaama aad list of names soo dirayso inaad halkan ka dhigto names okay taasaa muhiim waxaa muhiima asterixkaas dusha baan gelinaynaa laakiin marka dambeena hadhowta isticmaalayno variableka ma gelinayno listiga markaan isticmaalayno marka taas waxaa la dhahaa arbitrary arguments waxaa ku xiga keyword argument arbitrary keyword arguments waxaa la dhaho isagana wuxuu kuu fudaynaya markaad rabto macluumaad ku saabsan sida dictionary oo kale inaad usoo dirto marka haddaynu dhahno matalan def user details get details waxaan rabnaa qofka magaciisii infoga inaynu usoo dirno let's say print info marka waxaan rabaa inaan soo diro macluumaad kala duwan qofka magaciisii agekiisii magaaladuu degan yahay habkan markaa waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho horta marka hore keyword arguments ayaan isticmaalaynaa get details waxaan rabnaynaa name
age equal 20 city okay macluumaadkaas oo dhan baan rabnaa inuu ururiyo dictionary nooga dhigo habkaad samaynaysa marka waxa weeyaan waxaad isticmaalaysaa double asterisk macluumaadkan oo dhan keyga variable namekana key buu ka dhigayaa valuegiina wuxuu ka dhigayaa markaa valuegaas tan haddaan run dhahno waxaad arkaysaa inuu ka dhigay dictionary name Ahmed age 20 city markaa double asteriskaas wuxuu ka dhigayaa wixii aad u soo dirto waa inaad isticmaashaa markaa keyword argument aan isticmaashaa kabacdi ayuu wuxuu ka dhigayaa dictionary taas micnaheedu marka waxa weeyaan isna for loop ayaan isticmaali karnaa waxaan oran karnaa for key comma value in info dot items aan hore usoo baranay print key and value marka maadaama dictionary waxaan isticmaali karnaa isna for loop marka name Ahmed age 20 city London kanoo kalena examplada waxaad ku arki kartaa isagana in variable name kala isticmaalo laakiin khasab maaha variable nameka waxaad damtaa isticmaali kartaa muhiimaddu waana double asteriskaas ka horreysiiso iyo inaad usoo dirto keyword argument qaybtan ku xigtaan baranayna waxa weeyaan variable scope waxa la dhaho scopeka variablekan hadda wuxuu ku dhex jiraa functionka marka haddaan functionka u yeedhno variableka 20 aynoo print garaynayaa haddii laakiinse aan hadda isku dayno inaan print garayno x waxaa inoo soo baxaya error waayo x wuxuu ku dhex jiraa functionka marka waa local scope x kale haddaan dusha geyno x is 30 kan waa global scope haddaynu markaa ran garayno waxaad arkaysaa inuu marka hore 20 print garay oo function tii gudaha ku jirtay ah kabacdina markaa 30 oo outside the function global x key inuu print garay marka functionka variable ku jira functionka baa arki kara like outside the functionka dibadiisa cid walba arki karta haddaan hadda x ka tuurno meesha on dhahno print x wuxuu print garaynayaa 30 marka functionku wuu arki karaa x kan maadaama uu global scope yahay laakiinse functionka wuxuu ku dhex jiraa cid kaloo kale oo arki karta ma jiro functionka keliya ay arki kara marka waa muhiim in la fahmo variable scopeka marka la isticmaalayo functionka marka sidaan hore soo aragnay haddii aan halkan ku celino x key x is 20 waxaan aragnaa x key markaa 20 ayuu print garaynayaa globalkii ma print garaynayo haddaan rabno laakiin inaan globalka isticmaalno waxaan oran karnaa global x kabacdi hadda marka x is 20 haddaan ahno globalkii ayaan bedelaynaa waxaad aragtaan 20 print garay marka x kii 30 ahayd halkan ayaynu nidhi isagaan rabaa inaan bedelo marka inaan ka horreysiyaa ereyga global kabacdi marka x is 20 halkan print x 20 halkanna outside globalkii waxaanu ka dhignay maadaama aan bedelnay x kii globalka ahayd isna 20 ayuu print gareeyay marka haddaad rabto inaad kii globalka ahaa function gudihiisa inaad bedesho waa inaad isticmaashaa ereygaas global qaybta ugu dambaysa aan baranayna waxa weeyaan waxa la dhaho anonymous ama lambda function marka marmar functionkii ayaad si kale u qori kartaa oo ka fudud hadda waxaynu haysanaa function laba number isku dhufanay haddaan functionka u yeedhan dhaho result is equal to multiply 4,5 marka waxaan isku dhufanaya 4,5 kabacdina print marka waa functionkaas oo laba number isku dhufan labadii number inoo soo celin functionkaas haddaan rabno inaan ka dhigno anonymous ama lambda function waxaan oranaynaa marka hore hab kale aan u qoraynaa marka qaybtan oo comment aan ka dhigaynaa marka haddii aan rabno inaan u bedelo lambda function waxaan oranaynaa result oo variable namekeenii ahaa is equal to lambda ereyga lambda x comma y waa variable keenii kabacdi colon x times y waa bodigii functionka return uma baha inaad qorto automatically sidaa soo celin daana
marka meeshaan ku qorayna functionkaas defkaasi waxaas oo dhan waxaan qoraynaa variable nameki oo result is equal to lambda halka waxaan gelinaynaa labadii argument halkana bodigii functionka umana baahan inaan return dhahno haddaa marka dhaho print result kabacdina labadii number aan diro 4,5 resultiga inoo soo celinaya 20 sida kaa u shaqeynaya functionkaas ayuu u shaqeynaya laakiinse waad aragtaa hal line ayaan ku qornay ama laba line meesha halkan 1 2 3 4 line ka qornay marka anonymous functionka haddaad hal mar oo kale u baahan tahay ama functions ka fudud yahay waxaad u bedeli kartaa anonymous function waxaa la gaadhay waqtigii challenge-ga marka intaad videoga joojisaan isku day inaad challenge-kan samaysaan challenge-kan waxa weeyaan write a function called calculate BMI function xisaabina BMI-ga waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa marka la eegayo qofku inuu overweight yahay hilib saaran yahay inuu dhuuban yahay inuu obese yahay hilib aad u badan saaran yahay marka hab lagu ogaadaa jira habka la isticmaalo waxa weeyaan marka BMI formuladaas la isticmaalaa waxa weeyaan weight oo kilogram ah divide by height meter square ama height times height marka qofku weightkiisiiba aad weydiinaysaa iyo dhererkiisa marka saad xisaabinaysaa marka waa inuu functionka qaataa laba parameter weight in kilogram iyo height in meters kabacdi waa inuu xisaabiyaa BMI-gii oo soo celiyaa return gareeya marka returns the BMI value rounded to 1 decimal place iyo inuu soo celiyaa health category qofku ma underweight ba ma normal ba ma overweight ba mise obese marka waxaa la isticmaalayaa caseka if then else ama if and else if ayaa la isticmaalaya marka waxaa loo baahan yahay marka functionka markaad samaysay inaad functionkii qofkii intaad marka hore weydiiso weightkiisa iyo heightkiisa aad markaa functionka u yeedho good luck kabacdi waxaan idus doonaa solutionka okay solutionka baan arkaynaa halka marka waxaan samaynaa def calculate BMI waxaan u baahannahay weightkii iyo heightkii kabacdi marka xisaabinaynaa BMI is equal to weight divide by waxaan oran karnaa height times height saasna oran karnaa haddaan golan waxaan oran karnaa height to the power of 2 saan hore usoo dhiganay halka BMI-ga aynu xisaabinay marka round ayaan ku samaynaynaa BMI is equal to round BMI-gii 1 BMI-ga inoo soo baxay kabacdi waxaan eegaynaa marka resultiga if BMI is less than 18 waxaan samaysanaynaa halkan variable category empty baan ka dhigaynaa marka waxaan hadduu waxaan ognahay hadduu 18.5 ka yidhahay waa underweight waxaan marka if less than 18.5 if less than 18.5 category wuxuu noqonayaa marka underweight else if is greater than 18.5 is less than marka less xisaabineynaa 24.9 categoryga marka normal 25 24.9 weeyaan actually 25 iyo 29 inta u dhaxaysana marka waa if BMI greater than 25 is less than 30 baan u malaynayaa is less than 29.9 inta u dhaxaysa marka waa overweight kan waa normal weight underweight overweight 29.9 kan xanuunayna waa normal kana waa underweight
marka wixii 30 ka sarreeya waxaan iska isticmaali karnaa else category marka xisaabta waan xisaabinay waxaan u baahnayn hadda marka qofka outside functionka inaan weydiino macluumaadkii qofka geliyaan dhahno waxaan xarunaynaa let's say weight is equal to input enter in kilogram ayna markaa maadaama number uu yahay waxaanu ka dhigaynaa float halkan waxaan ka iloobay markaa hadda waan xisaabin laakiin samaynaa soo celin marka inaynu dhahnaa return weight comma category labadaasaan soo ceshanaynaa kabacdii heightkii baan weydiinaynaa intaan kan soo koobiyeeyo enter height in meters labada markuu geliyaan markaa functionka u yeedhanayna anagoo resultiga soo ceshanayna result is equal to calculate BMI waxaan u diraynaa weightkii qofku geliyey iyo heightkii kabacdi resultiga aan baris garsanaynaa fontigan yar isaad u wada aragtaa marka functionkii waa kaas functionkan markaan u yeedhno inuu resultiga inoo soo saaraa okay waxaan markaan programkii test garaynaynaa indhahno run weight waxaan idhi qofku wuxuu yahay 8 kg height 1.75 waxaa noo soo baxay overweight inuu yahay khalad yar ayaa ku jiray codeka waa markaan xisaabiyey resultiga khalad ayuu ahaa waxaana keenay waxaan soo ritaanka weightkii baan soo celi halkan laakiin waxaa inaan dhaho BMI gaan xisaabinay soo celi BMI marka BMI gaan xisaabinay inoo soo celinayaa haddaan test samayno marka haddaan hadda test garayno kg haddaan ahno 80 1.75 marka wuxuu inoo soo celiyey 26.1 overweight qofkaas kale dhererkiisa markuu intaas yahay waxaa fiican matalan haddaan mar labaad ran garayno inuu hilibka iska rido oo uu gaadho 75 oo kale haddaan dhahno dhererkiisana 175 marka waa normal weight laakiinse waa borderkii waxaan rajaynayaad fahamteen sida loo isticmaalo wuxuu soo celinaya saad aragtaan waa tuple marka inaga nagu xidhanta haddaan rabno waxaan odhan karnaa maadaamuu tuple yahay waxaan odhan karnaa BMI BMI waxaan odhan karnaa result 0 marka BMI-ga inuu hayaa category waxaan odhan karnaa marka okay let's run one more time mar labaadaan ku celino 80 1.75 wuxuu yidhi markaa BMI waa 26.1 categorygana waa overweight waxaan rajaynaad ka faa'iidaysataan casharkan waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu